waxaan bogaadinaya oo farxadana la qaybsanaya dhammaan ardayda 87 ah ee maanta ku dhamaystay waxbarashadoodii heerar kala duwan waliba maanta ay u suurto gashay mid ka mid ah jaamacadaha Soomaaliland oo Camuuda inay bixiso jaamacadda PhD haddii la yiraahdo 10ka nasi gaar ah baan u hambalyeynaya haddii la yiraahdo waan hambalyeynayaa gudoomiyaha jaamacadda boardka jaamacadda maamulka jaamacadda Camuud oo runtii ah institution guuleystay oo qaranku ku faanayo maanta jaamacadda Camuud waxay u baahan tahay haddii la isla wax ka qora in buug laga qoro wuxuu ahaa dugsigii ugu horreeyay ee sare ee xilligii Ingiriiska ee Somaliland keligii ay yeelatay waxaa ka baxay odayaal badan oo ay ka mid ahaayeen Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo madaxweynihii Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida iyo in kale oo badan oo aanan halkan ka sheegin hadda laakiin de taariikhdu xusi doonto institution-kani ma aha institution tacliineed oo keliya waa institution bulshadu leedahay oo ka turjumaya ummaddu markay iskaashato inay wax qabsan karto guuleysan karto waa institution nabadgelyada dalka guud ahaan iyo gobolka ka qayb qaatay waa institution dhaqaale waxaan isleeyahay institution dhaqaale ugu weyn gobolka marka ma aha jaamacad una kala laga galo laakiin qaybo kale oo badan ayay u saamaysaa bulshada gobolka Awdal waa jaamacad magac weyn yeelatay oo dad badan oo ka baxsan xuduudaha Soomaaliland ay caruurtooda ku aaminaan una soo diraan wanaagaas dadka sameeyay ee hirgi haday boardka tahay haday maamulka jaamacadda tahay waan ku inayaa waxaan kaloo ku faraxsanahay inaan maanta anoo boorama jooga oo hirgalay mid ka mid ah ballanqaadyadii xilligii Kenya oo ahaa madaxweyne kiisa si nabada ugu soo noqdo gurigiisa iyo dalkiisa ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Dooti baaya dalku iska badan yihiin jaamacadda markii aanu wareysanay baahiyeedu marka la eego ma badna laakiin de dhaqaalaheena uu koob waxa ka mid ahaa in hoolkan quruxda badan aan waa ka ugu weyn Somaliland aan uga mahadnaqayo ciddii dhistay Camuud Foundation iyo qurba joogii ka qayb qaatayba xukuumaddu waxa iyaduna ballan qaaday fulinaysaana sida ugu dhaqsaha badan iyadoo ay dalabtay qalabkii hoolka u baahnaa la yiraahdo waxa kaloo baahaya jaamacadda 4 arrimood oo kala jiray 4 arrimood waanu fulinaynaa laakiin sidoo kale horeeyaan ayaan eegi doonaa waxa ka mid ah in xarun maamul oo cusub loo dhiso maamulka jaamacadda haddii la yiraahdo waxa ka mid ah in campus cusub si ay u dhisato magaalada Hargeysa dhul la siiyo labada arrimood kalena bana lagu dhiibay marka insha Allah waxba ku sii maayo iyagana waxaan ballan qaadaynaa oo waa fulinaynaa wana soo kala horeynayaan haddii la yiraahdo ballan xilligii doorashada aanu ballan qaadnay gobolka Awdal waxay u badnaayeen dhinaca horumarinta ballanqaadka waxa ka mid ahaa
إن حكومة عصيادي يقول يستوى الاستمرار مجال بورمي مركز بيقولوا شيء جينا بلغات كاسبو فلي قعنتنا اللغة هي وأنا الله ما يستري مدارك مجال بورمي ككلوا هاي نسكح وضوء نسكح ده بكي يبورمي كاسينو وصعدا وأنا الله ما يستري هذا الله يرحمه كسد حضوها مشروع عضو بلارن مشروع عضو بلارن سومالي لاند وهو وضع اسكو حدا لو يعدو يبورمي كان قندراس كيسي بيشن دمات بحنية كافرادوها الدكدة هي دور شربة اللي ويدي مشاريع نجح دقو وهنقول مركان لعقته لو ما نجح دقا dhagaxyadii hore aan ka doonayno ka ururino wadanka marka insha Allah iyadana hawsheedii waa ku jiraa shacbiga gobolka wada waxaan uga mahadnaqaynaa qaybtii ay ku lahaayeen inay ka qaateen oo ay fuliyeen intii xukuumadda ku hadlayna xukuumadda ballan qaaday waana la fulinaya mashruucaas hadii la yiraahdo xukuumaddu guud ahaan waa xukuumad shacbigeeda la dareena waxaanu jecel lahay in waxyaabaha wax ka bedelaya nolosha qofka muwaadinka ay noo noqdaan muddo oo ay ka mid yihiin leydhka waynu ognahay duruufaha ay ku shaqeeyaan dalku maca shirkadaha leydhku duruufo adag bay ku shaqeeyaan laakiin waxaynu doonaynaa inaynu isku soo dhoweyno shii dadka haddii aan la yidhaahdo wuxuu noqday mid ka mida nolosheenna ama ka ugu muhiimsanba hadda maanta sidaa daraaddeed waxaan u mahadnaqayaa ee magaalada boorame oo wadahadal kadib ogolaatay inaanu xukuumad ahaan ka dhigno qiimaha leydhka eber 5 laga bilaabo 1 November 2025 waxaa kaloo aan isla qaadanay shirkadda in halkaa laga sii jabiyo leydhka waxaa jira mashruuc lagu maalgelinayo leydhka magaalada boorame oo sanad gudihii ku dhammaanaya insha Allah oo $10 milyan marka mashruucaasi dhammaado waxaa leydhka magaaladu noqon doonaa $0.3 oo tentatively noqon doona November 2026 biyaha la'aantu waa mashkilad weyn oo qaranka oo dhan haysata dhammaan magaalooyinka wakaaladda biyaha ee boorame waxaa loo sameeyey biyo ballaadhin looga sameeyey sanduuqa horumarinta oo 10 milyan waxay xukuumaddu garanay maadaama investmentka la geliyey in qiimaha biyaha magaalada boorame laga dhigo mitir cube-kii 11,000 oo Somaliland shillings waxaa kaloo jira mashaariic kale oo aan ballanqaadka ku jirin laakiin aanu fulin doono xagga caafimaadka cusbatalka guud ee magaalada boorame laba mashruuc baanu ku soo kordhinaynaa mid waxa weeye in loo sameeyo oo loo sameeyay already warshadii ay dhalinaysay oxygen haddii aan la yiraahdo mashruuca labaad waxa weeye city scan ayaan ugu deeqaynaa cusbatalka magaalada boorame waxaa kaloo maadaama shacbigeenu dhalinyaro u badan yahay sportigu muhiim buu inoo yahay waxaanu lagula dagaalamayaa balwadaha sidaa daraaddeed garoonkii magaalada oo aan wakhti dheer wax laga qaban waxaanu maanta dhagaxii dhigi doonaa waana dhammaystiri doonaa wixii ka qabyaa garoonka dhallinyarada wixii kale ee magaalada iyo danaheeda iyo cabashadeeda
intaba waxaan ka wada hadli doonaa odayaasha caawa haddii alla yidhaahdo kulanka alla leedahay odayaasha haddii alla yidhaahdo waxaan kaga tegayaa dee xukuumaddu waa xukuumad waqti yar joogtay intii tamarteedana way dadaalaysaa duruufo badan oo intii ay joogtay ka soo dabaalatay oo aada u adkaana way jireen oo ay ka mid ahaayeen qaramayntii ciidanka dhallinyarada ahaa ee gobollada bari iyo kala wareegistii hufkii iyo gaadiidkii ay haysteen oo ahaa runtii mashruuc weyn marka jaamacadaha lagu dhiganayo DDR project baa la yidhaahdaayoo waxaa laga yaabaa 6,000 aanu qaramaynay haddaynu jimciyadda quruba ka dhexaysa weydiisanno inuu $50 milyan noqon lahaa laakiin innagaa fulinay inagoon cidna waxba weydiisan haddii alla yidhaahdo ballanqaadyada kale waxaa ka mid ahaa ee aan miisaaniyadda noogu jirin aanu bilownay mashruuca waddada balligubadle iyo hargeysa iyo mashruuca baki iyo boorame oo la bilaabay iyo dhammaan mashaariicdii aan halkan ka sheegay imaka insha allah waanu ka fulin doono magaalada boorame ama gobolka awdal waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka jaamacadda oo ay ka muuqato sida uu u koray muddadaa dheer ee ay soo wadeen jaamacaddu sida la sheegay waxay bilaabantay 1997 professor Halas wuxuu inooga warramay dufcaddii ugu horreysay qalin jebisay intay ahayd 47 maantana waxaa qalin jebiyey 1,087 isugu jira PhD masters iyo bachelors ardayda qalin jebisay 22 waxay ku qalin jebiyeen geed hoostii maantana waxaynu fadhinaa hoolkii ugu weynaa Somaliland waxaan jaamacadda ku bogaadinayaa iyo jaamacadaha qaranka ee Camuud iyo Hargeysa iyo Burcaba inay hab yeesheen manaahijtoodana mideeyaan si tacliinteenu u noqoto mid tayadeedu ay aad u fiican tahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu